wardegdeg ah ciidamada daacadda oo ah garabka Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigreen ee ku sugan duleedka magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanka Ceeldoon ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayaan in gabi ahaanba ay hareereeyeen magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan ay ka wadaan duleedka magaalada Baydhabo gudaha magaalada cabsi aad u xoogan ayaa soo foor saartay mas'uuliyiintii garabka aadan madoobe ciidanka Itoobiya ayaa isku diyaarinaya ka bixitaan dhameystiran oo ay ka baxaan gudaha magaalada Baydhabo halka Laftigreen uu sugayo fursadda ugu dambaysa ee ah marka ciidanka Itoobiya ay ka baxaan magaalada Baydhabo in duulaan ballaaran oo afar jaha uu ku qaado magaalada si uu guud ahaanba gacan ku haynteeda ula wareego waxaan kula wadaagi doonaa guud ahaan wararkii ugu dambeeyay saacadihii la soo dhaafay ciidankii ku biiray safka Laftigreen cabsida gudaha magaalada ka jirto iyo sidoo kale ciidanka Laftigreen godoominta ay ku sameeyeen magaalada Baydhabo soo dhawow muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhibo hadii aad horey noola joogto ku maadsantahay hadii aad nala joogina nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran waa hagaaga wararka naga soo gaaraya duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa ku waramaya in ciidamadii ugu badnaa mas'uuliyiinta garabka Laftigreen ay soo buux dhaafiyeen isla markaana ay keeneen duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kuwaas oo hogaaminayaan saraakiil dhawaan ka baxday magaalada Baydhabo isla markaana la sheegay inay yihiin saraakiil si dhow ula socota guud ahaan dhaqdhaqaaqa magaalada Baydhabo meelaha laga gali karo ciidanka dawladda iyo kuwa aadan madoobe meelaha ay degan yihiin iyo sida ugu fudud ee magaalada Baydhabo ay ula wareegi karaan saraakiishan oo maalmihii ugu dambeeyay garabka Laftigreen ku biirtay ayaa la wareegay hoggaanka duulaanka Laftigreen uu ku doonayo in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay uu kula wareego waxaana la tilmaamay in saraakiishan ay yihiin kuwa si weyn markaasi u fahansan meelaha ay ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka aadan madoobe ay ka degan yihiin magaalada Baydhabo iyo sidoo kale meelaha ugu fudud ee laga soo gali karo magaalada sida ugu fududna loogu la wareegi karo ciidanka Laftigreen ee soo buux dhaafiyay duleedka magaalada Baydhabo ayaa la sheegayaa in ay ka dambeysay kadib markii saacadihii ugu dambeeyay soo baxeen warar waaweyn oo soo tirayo ku saabsan in ciidanka Itoobiya ay ku jiraan diyaar garowgii ugu dambeeyay ay uga bixi lahaayeen guud ahaan magaalada Baydhabo si lamid ah sidii ay uga baxeen degmada Boor Hakaba ee gobolka Baay magaalada Baydhabo hadii ciidanka Itoobiya ay ka baxaan Laftigreen waxa uu isku diyaarinaya in guud ahaanba gacan ku haynta magaaladaasi uu si dhameystiran markaasi ula wareego kana saaro ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ee halkaasi ku sugan iyo sidoo kale ciidamada markaasi daacadda waa garabka aadan madoobe Laftigreen iyo saaxiibadiisa ayaa lagu soo waramayaa in hadda markaasi dhinaca kale ay soo gaareen maalmihii ugu dambeeyay ilaa iyo waqti xaadirkan ay duleedka Baydhabo ku soo qulqulayaan gaar ahaan deegaanka Ceeldoon ciidamo iyo saanad military oo laga keenay